هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo ardayga quraanka inoo akhrin doona ardayda quraanka inoo akhrin doonta oo la yiraahdo Xamdi Cabdikariim Ismaaciil ku soo dhawow. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الأساتذة والإدارة والضيوف الكرام، نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبعد إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يودينا. بيض صنائعنا سود وخائعنا خضر مرابعنا حمر موادينا. لا يظهر العش منا دون النيل منى ولو رأينا المنايا في أمانينا. ونحن ناس لا توسد بيننا لنستدر دون العالمين والقبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يقلها المهر. أعز بني دنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخرا. فمن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفكر والإقدام قتال. شكرا لكم جميعا معلمين الكرام وإدارتهم والطلاب المجتهدين. جزاكم الله عنا خيرا جزاء وأحسن الله إليكم وباركم الله في دنياكم وآخرتكم ونفعنا الله بعلومكم. شكرا لكم جميعا. Best greeting of the world, which says Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. After greeting, my honors, guests, parents, teachers, and my friends who graduation for me. My honorable guests, parents, teachers, and my friends who guests, parents, fathers, me and my also classmates, but guys and boys after greeting. I would like to suggest about thanks and farewell to the students. I'm thanking to my best teachers who best are long version, time the rank my long journey of the learning. In this ceremony, I give special thanks to everyone who helped me. I give me in this gold every night.
In this I live and never reach if they may parents were not my shoulders and size. Apart from that, I am very keen to the may be here. I am also somewhat which above here. Today I am going to present here for a special speech passage and my graduation ceremony and leaving before I was a chronicity who has my graduation in my article false, but I know I am some strong people in this song proudly and never other beliefs. Our teacher to big and strong rule. Our teachers process and my road were not crossing ambassador to the full our goals and objectives. In my opinion, I will applicate here to the call people other graduation in Seton to come here and members of the school as we saw the quality of the school final. I will advise all the few mean all students and parents to then know the education is the life of their life. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Waxaan salaamayaa martida sharafta leh ka soo qayb gashay xafladeen. Waxaan kala salaamayaa maamulaha dugsiga, macallimiinta, ardayda iyo waalidiinta. Waxaan ku salaamayaa salaanta sharciga ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan halkan ugu soo jeedinayaa suugaan ama gabay ka hadlaysa barbaarinta ubadka. culimada qabtaalihi waana waynagala quusteene dhaaxayawaanadu qubeen xaaje qaaliye quruntii lumaysaa nastee xugama qaataane qosoliya wax lagu dhaafayaa qaadka galabeede wixii shalay kaa khaldamay maanta waa laga qiyaastaaye nin hadduu qambooliyo sarcada quule iyo jeerin waaxiyo ileenuma baxaan qaraya saytuune waa qaafil sabiguyo haddaan waalid qabanqaabin qarka iyo haddaan looga digin qowga iyo laaga oo aan samaaniya xumaan looba kala qaydin maxaa loo qabsanayaa hadduu qariyo buur jiidho geedkii qaloocsama intuu qaydhab yahay laana qodka leexda waayada dambaa laga qorqooraaye dadkuna qaabadaasoo kaluu qayb ku leeyahay qacda hore haddaan ubad ka kacay qaadhka lagu leexin hedhow baan la soo qaban karayn qaladkay geystaane dhallaankan qur-aankiyo la barin qowlka nebigeenna kama qiimo yara wiil la dhalay qaalinkaa lumaye isagaaba qaraafaad ugu dhexdaan baadi doon qabowga jiilaale khatarna waa u gashaa iyo libaax inuu ku qaataaye dhallaankan qur-aankiyo la barin qowlka nebigeenna miyuu quwadku qayrkii ka hadhay waa la quudhsadaye qalbigoodu waa xaashiyo aqooni kuma taale qaangaadh wax loo yidhi dembigu waa qabanayaaye adiguna khadkiibaatihiyo qalinta waadiiye haquushiin wixii lagu qoraad qaybsanaa nebide inta kalena waa inay ka qayb qaataan iyaguna oo hadda u diyaargaroobaan ardayda dugsiga dhammaynaysa hal talo aan leeyahay waxbarashadu dugsiga hoose dhexe keliya kuma eka mar haddaad dugsiga hoose dhexe dhammayseen weli waxbarashada haddeeraa sallaanka ugu horeysa cagta saarteen waxaan aad ugula talinayaa mar hadday gabdha yihiin iyo wiilalba inay waxbarashada sii wadaan weliba dugsiyadaana ay ku daraan qaybta diiniga macaahidda inay galaan oo ardaygu diintiisa barto oo aqoon u yeesho oo waxa weeye tii kalena ay sii wadaan oo labadaba hadda waa la isku wadi karaa ay isku wadaan talada iyaga waa siinayaa ardada kalena waxaan leeyahay dee ardada maanta dhammaysay ku dayashaha inay noqoto dhaqan ahaan waxa weeye waxbarasho ahaan u malayn maayo maalinkii dugsiga la bilaabayay 4 arday inoo muuqata kaliya laguma bilaabin waa ka badnaayeen laakiinse maanta waxa u yeelatay waxaan u malaynayaa waa dufcadii ugu horeysay iskuulka dhammaysa waa dufcadii ugu horeysay marka waxay noqonaysaa intiina kalena inaa ku dayataan deegaanka mar hadda dufcadaasu ka baxday kuwa kalena waa ka bixi doonaan deegaanka dardaaranka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa ballankeenu waa waxbarashada haddaynu aqoonta ku dadaalnana dadka waa ka horumarayna haddaynu aqoonta ku dadaali weynana dadka waa ka harayna mid waayeela iyo mid yar iyo mid dhexe dhammaan waxaanu deegaanada kula tartanaa ha noqoto aqoon waxa weeye shicaarkeena ha noqdo cilmiga iyo aqoonta hana layna ku barto taasaan oran lahaa waadna mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
kolley waxa weeyaan ardaydan waxaan u soo kacnay inaan ardaydan dhiirigelino oo aan waxa weeyaan meel fiican baad soo gaarsiiseenay halka ka sii wada kolley waxa weeyaan dadku markii ay maxaan ku dhahay dhiirigelinta wadeen yani musamoyaane waxa leeyahay maamooyinka waa leeyahay quraanka bartay aad baan ugu faraxsanahay in maxaan ku dhahay maanta halkan loo fadhiyo maamooyin quraanka iyaguna bartay waxa weeyaan waxaan leeyahay dumarkuna in isku wada diidaano ay diinta bartaan oo quraanka bartaan oo xaflada kuwan ka sii waaweyn aan waxa weeyaan kaga soo qayb qaadano ardayda waxa weeyaan ardayda kale ee kuwan ka dambeysana waxaan rajaynayaa iyaguna inay wadada hayaan oo ay waxa weeyaan waxbarashada ku dadaalaan ardayda dugsiga hoose dhamaysatay waxa weeyaan wala dardaarmayaa waxaan leeyahay anu kale Caroole waan ka yimi waxaan ay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Suldaan Walax Primary School ee Caroole sidoo kale waxaan macallin ka ahay dugsiga sare ee Xawti Secondary School Caroole ku yaala waa dugsi sare oo haba yar waxa weeyaan gebiyan ba lagu dhigo free macallimiintu waxay ku dhigaan si lacag la'aan ah ku dhigaan ardayda lacag laga qaado sidoo kale waxa weeyaan waxbarasho taalo deegaanku waa deegaankii ardayda waa go'an hatinaya waxaan leeyahay waxbarasho bilaashan hayna waxa weeyaan dadkiina oo jecel oo waxni barayaan nahay bal anagana na soo ogaado assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh كثيرا طيبا مباركا فيه انت كبعدي أنا أقول لك وقفت سنة يا شيخ جامع وحشي جمعيات مركز كي دعوة إنه قالت يوحى هذا المركز أفرد دقيقة لا يوم مرينا يا أنت هدي أنا كقول برنتي وحن آديات وفرح سنة هاي قابت نروح لبدني أي متشوقنا وحنا كل حبين كاها مجموعة دي والسعودية اللي سعنات كتمية مركز كنقاليد waxaan aanu halkan ugu nimi waxa aad noo farxad geliyay aad u qurux badan arday dugsiga dhexe dhamaysatay wax baratay aqoon ka muuqato waxa weeyaan halkan qaarkood waxay nooga soo jeediyeen oo Carabigi Ingiriiski iyo Soomaaligi iyo adabkii iyo maxaa hidihii iyo gabayadii ah runtii wax aad loogu farxo ahaa waxa kale oo halkan fadhiya maamooyin quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala bartay iyo hablaba oo runtii iyaguna xaflada qayb ka ah oo dhawaan bilaabay haddana laga yaabo qaarkood ilaa 4 jus inay dhameysteen runtii arrin markii noo sheegay iyaduna aad iyo aad noo farxad gelisay aanan ku arag deegaamada kale oo aan isdhihi karo deegaankan bay gaar ku tahay oo maaragtay aad iyo aad qiimo badan oo ku dayasho mudan weey waxaan rabaa inaan raahdo horta ardayda deeqan jabisay hambalyo waadin hambalyeynaya halka ka sii wada fariinta Caroole inooga timiyay ciidankan laga warayo insha Allah dugsiga sare waayo showd baa jirteen ama maaragtay waxbarashadii furihi koowaad baa qaadateen ciidaadiyadii baa dhameysteen saad sanawiyo u gaari lahaydeen oo jaamacad u gaari lahaydeen runtii horay ugu talaabsada maamooyinka quraanka bartay iyo hablaha waxaan leeyahay iyagana wax la barto wixii uu qiimaha badnaa baa barateen nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama umada ilaahay waxa ugu fadli iyo khayr badan qofka barta kalaamka ilaahay umadana bara marka waxaad barateen kalaamka ilaahay wax la barto wixii uu qiimaha badnaa waa idinku dhiirigelinaya waa idinku hambalyeynaya waxaan leenahay horay u socda waa idin garab taaganahay ilaahayna subhanahu wa ta'ala fadli iyo maarta ajar badan ayuu idinku siin doonaa waxaad ogaataan reer Burcadle intiina madaarista quraanka baranaysa iyo intiina iskuulka baranaysa iyo gabi ahaan iyo guud ahaanba bulshada reer Burcadle sabanka hadda la marayo tartankii caalamku waa isbedelay waagii hore waxa lagu tartami jiray muxuu ahaa geel kala dhaca iyo gabayada iyo muxuu ahaa waxyaabo noocaas hadda waxa lagu tartamaya oo lagu kala horeeyo waa aqoonta iyo cilmiga waxaad ogaataan deegaan kasta inta uu qiimeeyo waxbarashada inta uu qiimeeyo maaragtay aqoonta ayaa horumarkiisa iyo isku duubnidiisa iyo isku xidhnaantiisa iyo sharaftiisu ay leekaanaysa deegaanka waxbarashada midda maadiga iyo midda diiniga labadaba lagu qiimeeyo
oo maaragtay ahmiyad la siiyay wuxuu noqonayaa deegaan horumaray oo dad qiimo leh ay ka soo baxaan deegaankii aqoonta ka dib dhacana wuxuu noqonayaa ummad miskixiyan u dib dhacsan oo maaragtay meel laga tagay fadhidayna bay noqonaysaa marka waxaan rajaynayaa deegaankan burcad leh wax qurux badan baa nooga muuqda waxaa nooga muuqda sharaf badan waxaa nooga muuqda karti badan waxaa nooga muuqda guul weyn guushaa sidii aad maaragtay ugu faraadaygi lahaydeen horena ugu socon lahaydeen waa idinkula dardaarmayaa waxaan rabaa halkan inaan ammaan iyo mahadcelin u jeediyo macallimiintii ku soo tacabtay ardaydan hadday tahay ardayda iyo hablaha iyo maamooyinka madaarista quraanka ka bartay Sheekh Axmed Cabdi Xayi iyo maamulka iyo macallimiinta iskuulka oo runtii iyaguna de soo saaray waxa aad arkaysaan oo la'aantood aynaan maanta meel gaarneen waxaan leeyahay wax fiican baa qabateen halka ka sii wada jazaakumullahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadka ma aragtay haydin ku diro waxaan rabaa halkan inaan xuso oo u duceeyno Maryam Cabdi oo Faarax oo runtii barnaamijka quraanka iyo horumarintiisa ka qayb qaadata oo ma aragtay hadeerna kulli barnaamijkan qaar gacanta ku haysta waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ugu diro ilaahay ma aragtay adduunkana ha ku sharfo aakhirana jannaha ku geeyo dadka kale ma aragtay wax garadka deegaanka ama qurba joog ha ahaadeen ama meel kasta ha joogeen ee deegaanka horumarkiisa dhinac walba ka qayb qaadan karana waxaan leenahay nin waliba maanta deegaankiisa uu guntaday ha loo guntado deegaanka nin walba ama meel ku maqnaada inkastoo codkayagaasi gaadho waxaan leenahay boqolaal Maryam oo kala baa jireen barnaamijka ha laga qayb qaato aad iyo aad baan maartay waqtiga nagu yar maartay idinku ducaynaynaa waxaan leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh yooyinka musxafki ilaahay iyo kitaabki ilaahay iyo kalaamki ilaahay bartay waa wax lagu farxo ardayda dhalinyarta ah quraankana dhinac ka wada maadigii iyo dugsigii hoose dhexe dhameeyena waa wax aad iyo aad loogu farxo inta markaa ka soo gudbo adduunkan aqoon baa lagu tartamaa aqoonta lagu tartamona dadka waxa la baraa inta yar yihiin qofku markuu weyn yahay wuxuu baran karaa laakiin intuu curdinka yahay baa neefka la layliyaa geedkana la toosin karaa ilmuhu waa saas oo kale oo gabaygii inantu inoo akhriisay waa ku jirta adduunyada inta tira lagu kala ninba nin ugu toodhoonaya la isugu tookhayona waxa nin waliba nin kaga taagroon yahay intuu ka aqoon qofkuna hadii uusan aqoon lahayn waa taliyada waanin barkiyo waxba maaha waxay sawnima wax akhriyeyn waafi noqon waa qofku haduusan aqoon lahayn xataa waxa loo dhiibayaa warqadii dilkiisu ku qoraa hadii loo dhiibo oo ninka ula tago dil ugu qoran tahay ma garan karo marka waxa la rabaa dadku inay wax bartaan waliba dhalinyartu wax barashada ku dadaalaan dadka waayeelka ah ee wax barashada ka dib dhacayna ay baran karaan ku dadaalaan iyaga laftigooda waxa kale oo jirta oo aad iyo aad la yaab leh dhalinyartu iyo dhirta labaduba inta yar yihiin si sugaantiinantu akhriyeysay ku jirtay baa wax laga qaban karaa sidoo kale geedku markuu weynaado sida damalka iskuulka hortiisa buu dhacayaa marka uu dhaco waxa meesha ka soo baxa inintiisii duushay baa waxay samaysaa geed yar oo bedeli lahaa hadeer ka dimcad fara badan baa ku hareeraysan bari ka maalina dabal ka noqon doona halka soo arin burufa cad arkaasi ma dadkuna waa saas oo kale oo qofku markastuu waayeelo wadku u dhawaada inkastoo ilaahay subxaanahu wa ta'ala qof walba ajal sameeyay marka uu dhintona waxa adduunyada bedela waa ubadkiisa sida isagoo cabiraya waa tuulaha xajaada afqalo haddii geedan gooxaabada laga idlaystay mid yar oo iniintiisa ah baa soo awaal baxay dadkana odaygu isaga anfaaciga harkiyo oo dakaafiye dadkana odaygu goortuu ka baxo iyo islaantiisu ubadkii ay dhaleen baa tabco aayatiin hela halka iska shabahay waxay kale iska shabahan yihiin dhirta iyo dadku iyo maca xooluhuba intuu yar yahay laylyama caruurta waxa la bari karaa oo dariiqa toosan iyo tubta toosan lagu hagi karaa markay yar yihiin ilmahaagu intuu yar yahay wax bar isaga iska markuu hagaago iska weynaan markuu weynaado uu iska hagaag waxa man shaaba ala shay man shabba ala shay shaaba ala qofku shay ku barbaara uu ku cireystaa
badanaaba qofkuna shaygu ku ciraysto wuu ku dhintaa taasi waa ta kale markaan intaa ardayda arrimahooda kaga baxo magaalada iyo odayaasha iyo dhammaan magaalada laba erayo koobkooban baan odhanaya waa fiican tihiin dhankii waxbarashada iyo aqoonta waad ku fiican tihiin halkaa ka sii wada waxaa xoogay magaalada u yar baahan tahay oo ka dhiman xagga dhirta magaalada dhir ha lagu beero sidaa dadka loo korinayo dhirtiina ha la koriyo oo qurux iyo hadh iyo wax fara badan bay dhirtu tartaa waa noolaha labaad ee bini'aadanka iyo xoolaha marka laga tago noolaha saddexaad ee dhirtu lagu nool yahay wey maca xoolaha iyo dadku dhirta ku nool yihiin baa la yidhaahdaa ta kale magaaladu intay yar tahay ha loo sameeyo wadooyin iyo balayn hadeer marka halkan mid guri laga jeediyo halkana mid laga jeediyo halkana mid laga jeediyo sidaan ay magaaladii ku weynaato wax wadooyin ah oo aanay lahayn halkan suuli laga qodo iskuulkii iyo malcaamadii iyo masaajidkii iyo intiina aan meel loo diyaarin bari ka maalin markay weynaato waxba laga qaban kari maayo taasi waa qodob marka intay magaaladu yar tahay waxa magaalooyinka inta badan balaynka ka dila marka hore la degayo wax balayn magaala laguma saleeyo ceel baanin kaam ka furta ama iska dul dega saasi ku weynaataa hadhow iyadoo caasimada baan wada laga soo gal lahayn meel meydkii laga saar lahayn meel laga baxo lahayn marka waxa la rabaa inaynu xadaarada iyo aqoonta la jaan qaadno oo maadaama aynu madaniyiin iyo dad reer magaala noqonay halkan berdhow jeex geel u daaqay ahayd ceelka waa laga cabi jiray inkastoo sanaadu biyo badan dhuqdhuq biyo badlaa burcadda anigu aqaanay ceelka kale aad magaca ka xogteen oo biyaha xoolaha laga waraabin jiray marka waxa la rabaa in magaaladu inta yar tahay la hagaajiyo waxa aynu halkan galabta aynu u fadhino waxa weeye waa xaflad ku saabsan laba dhinac ama laba waji ka kooban waji waxa weeye arday ka qalin bedelanaysa dugsiga dhexe galaaska aydhka oo insha Allah taala u gudbi doonta dugsiga sare ardayda awalan waxaanu leenahay waxaad joogtaan meeshii ugu qiimaha badnayd waxbarashada waxaad soo gaadheen meel aad iyo aad u qiimo badan waxaa laydinka rabaa inaad halkaa ka sii wadaan oo waxbarashadiina aad sii dhammaystirataan oo maadi iyo diiniba dadku wakhtiyadan hadda waxay aad u xiiseeyaan oo ay daneeyaan maadigu runtii wuxuu qiimo leeyahay oo qofka uu anfacaya aakhiradiisa iyo adduunyadiisaba marka uu dhinaca diintana ku daro ardayda marka waxaan kula dardaarmayaa inay waxbarashada labada dhinacba ay sii wataan oo dhinaca maxaan ku dhahdaa macaahidda diiniga ah ay weliba xoogga saaraan oo ay aad iyo aad ugu dadaalaan sababtoo ah qofku markuu dhinaca diinta uu xoojiyo oo diintiisa uu gacanta midig ku qabsado oo dhinaca diinta uu ku dadaalo maadigu waa tawaabic diintaasu daba socdaa isagaa qofka iska soo gelaya oo wuu iska haleelayaa qof marka ardaydaasi inay ku dadaalaan waxbarashada dhinaca diiniga iyo dhinaca maadiga intaba aad iyo aad baanu ardayda maanta quruxda badan ee waxbarashadii heerkaa soo gaadhsiiyey ee intaa soo dadaalay aad iyo aad baanu waxa weeye u bogaadinaynaa waalidiintii ku soo tabacayna waxaanu leenahay iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin jazaakum allahu khayr runtii waxaa xafladda iyaduna dhinaca kale qayb ka ah maamooyinka ama hooyooyinka iyaguna baranaya qur-aanka kariimka ah oo yacni wax la barta ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa ugu qiimi badan maamooyinku markaa qur-aanka markay bartaan waxay soo saarayaan ubad aqoon leh oo qur-aankii jecel oo qur-aankii baranaya oo qur-aankii fahmaya ayay soo saarayaan iyagana aad iyo aad baanu ugu dhiirigelinaynaa inay inta hadda baranaysana ay ku sii dadaalaan inta waxa weeye ka maqan ee waxbarashada imika aan weli qayb ka noqonina inay ku soo biiraan waxbarashadu sida culimadii iga horreysayba ay sheegeen waa waxa ummadii ay ku kala horrayso wey waxyaabaha lagu kala hormaraa adduun iyo aakhiro intaba
waa aqoontuna waxay awalan horta ku fiican tahay yaraanta in lagu soo bilaabo laakiin waqti ay ku dhammaato qofku waxbarasho kaga gudbi karaa ma jirto min almahdi ila luxud baa la yiraahdaa ilmuhu markuu dharabta hooyadii ku jiro ilaa iyo waxa weeye iilka inta laga dhigayo inta u dhaxaysa qofku tacliin iyo waxbarasho ku jira khayr yashtar midku doonaha barto yani waxbarasho iyo tacliin ku jira jaanis marka qofku markuu helo fursadu wax ku baran karo inuu waxa weeye uu waxbarashadiisa khaasatan diiniga waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofku uu ku caabudayo isaga iyo rabbigiisii abuuray xiriirka u dhaxeeya sidoo u baran lahaa yaani wixii uu rabbigi ku caabudi lahaa oo kalaamka Ilaahay uu ugu horeeyo inuu qofku ku dadaalo oo barto ayaa laga maarmaana hablahaas ama mooyinka quraanka baranaya maanta xafladda loo qabtay ma sha Allah quruxda badan waxaanu runtii cid kasta oo ka qayb qaadatay waxbarashadooda iyo tacliintooda waxaanu leenahay miisaanka xasanaadka Allah ugu daro gabadhii halkan looga ducaynayay Maryan Cabdi oo Faarax oo runtii qayb weyn ka ah ama abaabulka iyo maxaan ku dhahdayay isku dubaridka iyo isku soo xidhka lahayd in waxa weeye hablahaas madrasada malcaamada loo furo oo quraanka loo dhigo oo kutubta loo bilaabo yaani abaabulkeeda iyo fikirkeeda iyo isku soo dubaridkeeda inta badan waxa la Maryan Cabdi waxaanu leenahay miisaanka xasanaadka Allah ugu daro adduunyadeeda iyo aakhiradeedaba Allah subhanahu wa ta'ala ha ku wanaajiyo iyagana hablahana waxaanu kula dardaarmaynaa inay dadaalaan oo fursadda iyo jaaniska ay ka faa'iideystaan barita ka maalin waxa laga yaabaa fursadda maanta haysatay inaanay ku soo marin fursadda iyo jaaniska maanta haysato ee aqoonto haysato ee macallimiintii haysato ee gurigaagii joogto ee waxa weeye aad wax baran karto waxay u badan tahay barita ka maalin inaadan helin marka fursaddu markay kula siman tahay ayaa waxa weeye laga faa'iideystaa jahliga wax qofka bini aadamkii uu ku noolaado uu waxa weeye ku sugnaada jahli baa ugu xun marka jahliga in laga baxo oo waxbarashada lagu dadaalo oo ubadka yarka waxbarashada lagu barbaariyo oo hooyadu carruurteeda ay waxbarashada ku barbaariso ayaa la doonayaa dadka waaweyn ee waalidkiina in iyaguna sidoo kale waxbarashada ay ku dadaalaan oo ay xoog saaraan rag iyo dumarba inahaasaynu insha Allah ta'ala aynu isu dardaarmi sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alaykum salaam macalinku wa mahadsan yahay sida fiican kelmada qiimaha badan soo jeediyay waxaan hadda insha Allah ta'ala majaalka uga bixi doonaa ardadii muddada soo dhiganaysay iyo jaa'isoonkoodii waxaan leeyahay laba qodob oo baan rabaa inaan halkan ku soo gabagabeeyo qodobka koowaad ee Maryan Cabdi oo Faarax oo hawshan abaabulkeeda haday tahay hantiina ku bixiso waxa weeyaan koow ka ahayd oo hawshan yadu waday waxaan leenahay waa ducaynaa sidii hore lagu duceeyay ducadan ugu sii daraynaa ilaahay khayr siiyo ilaahay waxay baxsatay ilaahay subxaanahu wa ta'ala meel kale bedelkeeda ka siiyo ilaahay adduuniya aakhiraba abarakeeyo waa leenahay waxaan kale qolyaha kale dad badan baa jira sidii hore loo sheegay oo deegaanka ka soo jeeda waxaan fariin u dirayaa insha Allah ta'ala kul wala duubayaa iyagana aan leeyahay deegaanka waxyaalo badan buu u baahan yahay ay koow ka tahay masaajidka oo yar ada masaajidka ku yaala magaaladu waa yar yahay masaajidkana waxa dhistay maamo Maryan Xasan Barre oo ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hooyadii waxaan leenahay iyadana masaajidka insha Allah ta'ala hore u bilowday oo aan fariinta ugu duubayaa inay masaajidka si ballaadhiso oo waxa la yiraahdo masaajidka weynaysiiso oo si waxa weeyaan ajarkii ugu sii socdo iyadana fariinta waan u duubayaa madrasada waxba ka dhiman hal qol kaliya dhisan hal qol kuma filla waxay u baahan tahay ugu yaraan ilaa laba qol oo kale hadii laga sii badan karo lagu daro waxay u baahan tahay deer la isku soo wareejiyo masaajidka iyo madrasada bay u baahan tahay hal qof iyo laba qof ma qaban karayaan in la isku tagaa loo baahan yahay qolyaha qurba joogta halkan khaasatan ka soo jeeda inay hawsha ka qayb qaataan oo wax ka geystaan baa loo baahan yahay
meesha hadday hagaagto diintu hadday hagaagto oo masaajidkii iyo madrasadiiba hadday hagaagto wax kalena way hagaagayaan intaas waan leeyahay sidee ogsoon tihiinba meelo fara badan waxaa lagu dhigaa deegaanka ka mid ah dacwada nogaash waxyaalaha qaabilsanta waxa kamid sanadkiiba waxa dhigtaa tartan quraan ah waxyaalaha loo eego tartan quraanka meelaha lagu dhigayo waxa kamid ah in goobtii la helayo marti badan baa isku timaada boqolaal ilaa dad badan baa isku yimaada 200 ka badan waxa loo eegaa meeshaas ma ku haboon tahay inay marti gelin karto baa loo eegaa waxyaalaha marka meeshan ay kaga hadho waxa kamid ah inay goobtii martidu ay iman kar lahaayeen ay ku yar tahay waxaan qabaa haddii loo ballaariyo masaajidkana la sii ballaariyo madrasadana la kordhiyo dhismo kale haddii kale waxa weeyaan hoola lagu samayn karo waxa weeyaan la sameeyo in ay burcadle ka mid noqon doonto markaska dacwada nogaalada meelaha tartanka uu ku qabto quraanka sanadkiiba inay ka mid noqon doonto baan qabaa taana waxay ku xiran tahay in dadkii family-gan deegaanka ka soo jeeday inay waxa weeyaan u qayb qaataan oo higeliyaan goobaha ay ballaariyaan si sanadka waxa weeyaan sanadada soo socda insha Allah loogu dhigi lahaa tartanka quraanka